isha ku haya dhaqdhaqaaqyada uu Siciidani wado muuqaalka sheergareeya fogeeya daaqadaha uga tuura dani iyo talaxumayaashiisa iyo rikaab xumadiisa iyo dowlad xumadiisa iyo dulmigiisa iyo reeraha uu ku duulayo madaxweyne ma adigoo xaafuun laga soo cayriyay oo shirkadaha dhowrka milyan ka qaadatay lagu yiri ma jirto meesha bahdir baale oo mas'uul ka ah lagu yiri oo adiga iyo Muuse Suldaan buu xilli ka weydiin waayay baad rabtaa inaad aniga galgala iyo mijiyahan iyo doomatid madaxweyne ka fiirso aqligaaga meesha raggii 2005 baa ku nool jooga ciyaalkoodii baa jooga kuwa dhaxalka wiilashooda in aad gurato oo ku takrifasho kugu garab siinayaan waanu naqaanaa oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo adeerkii Suldaan Maxamed Cabdullaahi Cartan warkawaan tooba waxaan tolku ku midaysnayn reero islaameed ha u soo lugoynina fidnaha ka shaqeynina dhaharteeda xallin weydeen dhahar waxa ka jira xalliya intiidin cod u soo kaxaysan galgala iyo mijiyaha war dhulka wala wada degan yahay xishooda maanta haddaad talada haysaan yaan taariikh xumo idiin qormin reer maxamed tolkay baan la hadlay iska qabta Suudaanka iyo gudoomiyaha haddii kala beriyeena is eedayn dhulkaas 2005 wixii ka dhacay waa la ogaa inta ragna kaga dhimatay waa la ogaa arrintaas ka fiirsada u dhugiyaasha waxaan idin sheegayaa dani inuu idinku soo socdo goortu ma jirtay waxba ka qaadi waayay garow laga soo baaciyay galkacya laga soo baaciyay Boosaaso u jeeda wax ka haysta armaha ay salaamo fadhiya idinku rawan fidna idin dhex dhigo oo islaysaan intuu idinku dhow dhulka idin difaacaya war dawladnimada horta ha shaqeyso madaxweyne tan anaga waxba noo difaacan Puntland saacadihii u dambeeyay waxa ka dhacay laba afduub oo kala duwan magaalada Boosaaso xalay fiidkii waxa ka dhacay afduub loo geystay injineer Cabdirashiid Yaasiin Nuur Geesood oo ka tirsan ehelada madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni saacado kooban kadib waxa isla magaalada Qardho afduub ka geystay ciidanka BNPF iyaga oo afduubtay sheekh lagu magacaabo Yuusuf Dheere oo ka soo baxay masjidka Al-Dacwa ee magaalada Qardho salaad subax kadib iyagoo u aaneynaya injineerkii xalay ciidamada BSF ay ka afduubteen gudaha magaalada Boosaaso waa suurtagal inaad ku wareersan tahay sida ay wax u jiraan iyo dhacdooyinkan foosha xun ee Puntland ka bilowday haddaba waxaan ka dabageenayaa faralakan halka ay ka soo bilowdeen iyo meesha ay u socdaan ugu horeyn waxaan ka xumahay oo ka tacsiinaya waxa ka dhacay Puntland iyada oo suurad xumeynaya dawladnimadii Puntland ee halka ka jirtay iyo dhaqankii gobeed ee lagu yaqaanay Soomaalida dhexdeeda waa arin ugub ku ah in laba reer oo isku hal family ay dad kala afduubtaan waxa dulmi iyo xadgudub lagu sameeyay injineer Cabdirashiid Yaasiin Nuur Geesood iyo ganacsade Yuusuf Dheere oo ilaa hadda aan la ogeyn sababta ay u xiran yihiin iyaga oo ku dhex dulman isla dawladii amnigooda sugi lahayd labadan arrin aad ay u kala falxun yihiin mar waxa geysanaysa dawladii mas'uulka ka ahayd amniga dadweynaha marna waxa geysanaya ciidan sumcad weyn ku lahaa gudaha Puntland ee lagu magacaabo BSF arrintan xurgufta ahay waxay salka ku haysaa dhacdooyinkii iyo dagaaladii foosha xumaa ee ka dhacay magaalada Boosaaso xalay waxa Boosaaso ka dhacay afduub ay geysteen ciidamo ka tirsan hay'adda BSF iyaga oo qafaashay injineer ka tirsanaa shaqaalaha aeroportka Boosaaso kaas oo ka mid ah ehelada madaxweyne Puntland Siciid Cabdullaahi Deni xarig Cabdirashiid ayaa loo aaneynaya xarig iyo sharci darro loo geystay wariye ka tirsanaa hay'addaasi BSF oo 5 bil ka hor lagu afduubtay magaalada Garowe waxaana amarka bixiyay agaasimaha hay'adda BNPF Cabdirabbi saacado kooban kadib waxa si fool xun uga jawaab celiyay afduubkii Boosaaso ka dhacay ciidanka BSF oo magaalada Qardho ku afduubtay nin magac ku leh una shaqeynayay shirkadda Amal kaas oo loo aaneynayay
xariggii xale ka dhacay magaalada Boosaaso ee lagu afduubtay injineer Cabdirashiid afduubka Garowe ka soo bilowday oo u gudbay Boosaaso iyo Qardho wuxuu salka ku hayaa xarigga wariye Maxamuud Dooxo oo ahaa madaxa miidiyaha ee hay'adda BSF kaasoo ay Garowe ka afduubteen maleeshiya beeleed huwan shaatiga dawladda arrintan foosha xun ee Puntland ka dhacday saacadihii la soo dhaafay waxay turjumaad khaldan ka bixinaysaa in aynan Puntland ka jirin maamul iyo kala dambeyn balse lagu wada joogo yaa tahay haddiiba dad ahelihi isqafaalanayaan maxaa ka malaynaysaa kuwa dulman ee lagu xiray shaatiyada ay xiran yihiin kuwa iyagu kala xishoon waayey sharciga iyo nidaamka iyo jiritaankii Puntland iyo sumcaddii Puntland ilaalin waayey ay kala weynaatay qof laga xiray beeshooda sir wada ogsoonahay shacabweynaha Puntland way wada hubaysan yihiin balse waxay ixtiraamaan nidaamka dawladnimo haddiiba dawladdii ay dadkii amnigeeda sugi lahayd afduubanayso adigu maxaad sugaysaa tani waa ogaan doontaana waxay dhalaysaa in qofkii la xirtoba ama system sharciga dawladda ha loo xiro ama ha lagu xadgudbo cid kasta oo wax tabata inay afduubato cidda ay wax ka tabanayso ehelkeeda nin aan degaan lahayn ma jiro nin aan hubaysnayn ma jiro nin aan reer ka dhalana ma jiro dawladda waxaan soo jeedinaya inay falalka noocaasa ka waantowdo kana hortagto aysan ku ciyaarin magacii haybaddii iyo sharaftii iyo kala dambeyntii Puntland lagu yaqaanay siciid madaxweyne gacantaada ayay Puntland ku burburin maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ku mashquulsanaa inuu ciidamo soo ururiyo si uu mar kale Boosaaso dagaal uga rido oo mar kale Booso looga qaxo sababtoo ah tii hore ayuu waayay cid kula xisaabtanta walaa culimo walaa waxgarad walaa nabadoono walaa isimo walaa dawladda dadka ka shaqeynayay weli lama hayo cid tirada Siciid wixii Booso ka dhacay maxay ka yeelaa taas ayaana sahlaysa in wiilasha isaga ku haybta ilma adeerta oo shaatiga u sita dawladnimada ee ciidanka BMBF magac dilay inay hadba reer ku duulaan dhawaan ayay ahayd markii wiil madhibaan ah uu ka cabanayay in la jir dilay la faraxumeeyay xag shardarra lagu xukumay isla taas beddelkeeda misna waxa dhacday in wiil madhibaan iyo gabar baanta ay Booso isku qabsadeen waa isqabnaa heshiis baan nahay adu muran dheer kadib in ninkiina loo jaray xabsi uusan xaq u lahayn sida eheladiisu ku doodayso gabadhiina xorriyaddeeda dib loo siiyey taasina waa xuquuq iyo kala guridda bulshada waana meelaha ay ka imanayaan cawaaqib xumada iyo sumcad xumada ku socota maamulkii Puntland ee hooyada u ahaa dowladda federaalka Soomaaliya sharcigu ha sareeyo dowladnimo ayna deeqda qabiil iyo qabiilnimo deeqdo madaxweynuhu wuxuu la hadlay ciidamada godad ku sugan guud ahaan gobolka Mudug isagoo ka dalbaday inay Booso kala sifeeyaan ciidan uu sheegay inay xoog kaga haystaan balse madaxweynaha waxa u muuqata wiilal ay mar islaayeen uma muuqato Daacish iyo shabaab dhibaatada ay ku hayaan deegaanka iyo ganacsiga iyo horumarkii Puntland ka socday sababtoo hooyadii Boosaaso oo Soomaaliya qof walba oo Soomaaliyeed joogo ayaa dhibaato ka socota madaxweynuhu wuxuu la hadlay reer magaaleed wuxuu weydiistay ciidamo oo ka haysto gobolka Bari iyagana jawaabtooda waa ka sugaynaa laakiin waxaan kula talinayaa inuu caqligu shaqeeyo dowladnimada loo hoggaansamo madaxweynahan dagaal beeleedka abaabulaya waxaan leeyahay madaxweyne Puntland nimcadii taallay adiga iyo faamilkaaga urursaday ka xishoo dadka ka xishoo dowladnimada ka xishoo taariikhda dambe waxa ku geli doona madaxweyne George Colaada ahurinaysid waan ognahay inaan qabiilkaaga soo hubaysay oo aad tiri macdan baynu ka guuranaynaa gobolka Bari gaar ahaan buuraleyda Calmadow galgala iyo mijiyahan rag sida ilmo adeerta uga caroonayso qofka laga afduubtay baa jooga ha ku soo degdeg oo halka fidnaha ka abuuri labada reer dhexdooda labada reer hadda way heshiis waa dad ehla xilliga cadda ugu dambeysay fidnad iyo isjiidjiidasho sawirkii sawir la mid ah bixin hana ku soo duulin dad deegaankood dowladnimo waa jirtaa waa sax laakiin deegaanka waa la kala leeyahay madaxweyne ma adigoo xaafuun laga soo cayriyay
وشركتها دور كبلين كقاعدتي لو يري ما جبته ماشى بحضر باله ومسؤول كأه لو يري وأديك يموسى سودان بحال كوي دين واي بهربتها إنا أنا قلقلة يمجيها نيد دولتي مدحوينه كفيرسو عقليغاغا meesha raggii 2005 baa ku nool jooga ciyaalkoodii baa jooga kuwa dhaxalka wiilashooda in aad gurato oo ku takrifasho kugu garabsiinayaan waanu naqaanaa oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo adeerkii Suudaan Maxamed Cabdullaahi Cartan tolkay baa la hadlay iska qabta Suudaanka iyo gudoomiyaha hadii kala bariyeena is eedayn dhulkaas 2005 wixii ka dhacay waa la ogaa inta rag ina kaga dhimatay waa la ogaa arrintaas ka fiirsada u dhugiyaasha waxaan idin sheegayaa inuu idinku soo socdo goortu ma jirtay waxba ka qaadi waayay garow laga soo baaciyay gaalkacyaa laga soo baaciyay boosaasaa u jeeda wax ka haysta armaa caysare waan u fadhiyaa idinku rabaan fidma idin dhex dhigo oo islaysaan intuu idinku dhulka idin difaacaya war dawladnimada horta ha shaqayso madaxweyne intaan anaga waxba noo difaacin